بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وح إلهي كو قري ما هنا وح كلكلا كما يماد dhibaatada maanta dadkayga haysata waxa weeyaan dhibaato maxaan ku idhaahdaayay ay dadkeenu ay iyagu naftoodu ay moogtay qaar mas'uuliin ah oo garanaya ilaa iyo sidii EGLF loo asaasay dadkii EGLF ahaa ee madaxda ka ahaa ee maxaan ku idhaahdaayay burburiyay qadiyada ciisaha ee moogtay ku meel gaaray ee ku gaaray ilaa halka ay maanta joogaan oo wali ilaa maanta madaxda ka ah oo dawladda Itoobiya ayaan maamulnaale oo yani maamul ma hayaan laakiin magac ahaan taswiir ahaan ummadooda maadaam ay burburiyeen ay baabi'iyeen iyay ku joogaan oo mid nin horta qofka kolka dawlad qaadanayso ay mas'uul ka dhiganaysa meel u dhiibanayso magac ahaan xiniyaha taabata kolkay xiniyaha taabata haduu yiraana kan dhiig buu leeyahay la yiraahdo waa laga tuuraa ka aanan oran adkaysana dhiig ma laba yiraahdiin oo kolkaas ay qaadaan mas'uul ka dhigan sida ay maxaan ku dhahday rag qaar kood ee garanaysiin hebel iyo hebel inaan idhaahdo nacabahay waad wada garanaysiin wixii EGLF ilaa iyo hadda maanta ku jira dawladda kolka waxa weeye maanta aanu soo galay taamaha iyaga maaha iyagu waxa weeyaan ciise de isaga garanaya halka way dhex joogaan talada ay ka qaadanayaan iyo go'aanka ay ka qaadanayaan iyo waxa ay moogtay iyaga garanay ninka la yiraahdo Akshar in uu isaguna de horta waa dadkaas oo moogtay korkii Cabdi Iilay hag dhiibo maxaan ku dhahdaa wuxuu u dhiibay Cabdi Iilay xiniyaha lahay kana xiniyaha dii la qabto inuu maanta waa fiican yahay dhulku waa fiican yahay dadku way fiican yihiin ahidaaha uu ka damqado dhibaatada hal maanta joogta halkay ka ahaan lahayd ee amxaara iyo Tigray inaynan u sinaadaan aynan ahayn amxaara waa kee horta balan ka sheekeeyay amxaara muunan ahayn kii shilaaba gubay anu waan tagay ilaan magaaladii ma halkii ay ahayd ma halkii ay booliiska agtiisa dhinacaas ay ka ahayd maanta saxagaabay ka tahay magaaladu meel gooniya weey walaanahu aqal maharina waa la gubay hay dad iyo duunyo iyo xoolo wixii ku jirayba Ali Casar sidaas la eg baa loo galay qabri dahare sidaas la eg baa loo galay anu waan soo maray qabri dahariya dhagax buur iyo awaar iyo shilaab iyo goday iyo qalaaf iyo mustaxiil iyo buurcu kuriya galaadi iyo booq ceelka maraacati iyo miraraale iyo dhuure iyo garla gubay iyo shiniile iyo jugle intaba waan soo wada maray wixii lagu sameeyay baan ogahay ceel biyo ama qodan dukaanka magaalooyinka heejadaha yaryar ee meesha ka furan magaalo ma jirin dukaan wax laga iibsado haddii uu jiro lacag lagaga iibsado oo Ethiopia ma jireen dalool santiin dhexda daloola oo Ingiriisku Kenya kaga tagay iyaa wax lagu kala iibsanay marka haddii aad qarshi meel dukaan ama maqaaxi wax ka cunto qarshi u dhiibto wax lagu soo celiyo ma jirina taas kiish lagu shubay war maanta way joogtaa maanta joogtaa kii miyaad haddaba kii ay shacana dilaymuunan ahayn kii 7 halkan maanta lagu dagaalamayo casbuli ninkii maxaan ku dhahdaa amxaara u soo qaatay isagoo waliba hor socda Oromo iyo Cafar ee gubay ee xoolihii boqnaha gooyay muunan ahayn kii maanta sidee baad ee maanta haddana 30 milyan maciyaar ba eeg waxyaalaha hubka kale uu siiyay iska badhaaf 30 milyan oo lacag ah cash indhaha iyago cad ugu dhiibay jeeg ninkan aad is haysataan marka sidee baad u garab galiyo hadduu Tigray la dagaalamay aad u garab gali
ood maanta ugu faani inaad garab joogto ilaah baan kugu dhaarshay maynan taasi cadaab gal ahayn ummadaadii oo ma ogtahay waxa la yidhi diintu waxay tiraahdaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaalka hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba goolsi fansur akhaaka zaaliman aw madluuman zaaliman hadduu yahay ka dulmka ka celi مظلوم هدو هنا قرب جوك سو رصاصة دور ريدا يلرد بالو ليه معناه او عدو كردو عدونا مانتا الساقي او عدو داد كاقي دمانيو اياد مانتا هدانا كي ديلي اد قرب جوكتا او دمالن قران آتي انا تكهدلين مركا محان كنت الماما محال قلت المامي تا ورحشود الان مينان هين قبر القب مينان هين marka maxaad isku maxaad oranaysaa ummadda war shalay mayna nahay wixii maxaan ku dhaad jigjiga lagu dagaalamay war jigjiga waad u dhiibtay oo intaas oo milyan oo amxaarad abdi ilay sababtiis kolka ay moogtaay la dajiyay dadkii dib dambe u yeeda yimiday oo qabsaday meeshii oo adigu ma joogtay oo taad shalay toole ay ku feedka ku dhiganayeen diiniga ah ee dariiqada ay xidheen marka war dul Soomaali dul Ethiopia weyn uu yahay uu naga dhaxaysa Ethiopia nin gaar ah male laakiin kuwani waxay isku haystaan iyagu inay iyagu gaar u leeyihiin laano 100 sanadood iyay ma ogtahay ay haysteen dhulkan iyo dadka kan marka de way ismoodsiiyeen am Tigreena kii laga qaatay hore iyo ahaayo waa ka dib u soo kacay ee qabsaday labadiiba xiniyaha isku hayaan oo ana xiniyale way waxa lagu xiniyaha loogu sheeganayna waa adiga ma cid kala adiga way ana qabsan iyo ana qabsan ee wax kale ma marka adigu fursadaha maanta jira maanad inaad ka faa'iideysato ahayn fursadaha maanta jira maanad inaad ka faa'iideysato ahayn aawe raggi dhulka oo dhan ana laha ilaaha waas xagee jiraan afar iyo 2004 lixdii mise 7 iyaan dhalinyaro jaamacadaha ka dhameysay aan is arag oo yiraahdeen cali oo kale bal lecture naga si ardayda jaamacadaha ka dhameeyay baan isku imanaynaa maxaan ka hadlaabaa dhulkeena bay dhahay de dhulkeenu waa inta de horta dadku ma dhayihiin baan idhi dhulka gala war waxa yar kale waxaas maan cadowga iyaga iskaga riixna baan ka idho iyagu horta ku soo horeeyo hagubo oo inagu yaa kolka hay nagu soo dambeeyay ma hagubadii baad adiga ma dadkii baad ku jirtaa ee haguba dadku horta iyaga aan hagubna aan idhiyo gubisii baad ku wadaa miya dadka kolkaasay yidhaahdeen mayane haddii ay kuwaasi waa minority oo afka laga jufayni de jufayntii haddii aad adu gacanta ku qabatay jufayntoodii iyo haddii ay dagaalka tahay dabgelintoodii miyaa waxaanad kolkaa dadka kan ugu tala gashay ileen waddanka waxa kula degan 60 ilaa 34 qolo oo qowmiyadda Soomaalida ka wada mid ah 34 qolo 34 qolo oo waliba dhinaca ka wada xiga ma dadkaas oo dhan baad wada gubi ileen waxa meesha taala walaalkii loo xiriyo ad la soo qoysay kolka kuwa loo xiro adigana miyana lagu soo dambeynayni laano 3 jid weeye waxa ay damacsan tahay amxaara waxa u saacidaysa jacayla maaha afarta jacayla maaha way gubi doontaa aakhirka iyagana laano jidkii bay fadhiyaan Soomaalida laga kaxaynay loogu tala galay in laga kaxay iyaguna ku harayaan ku kaaba iyagana loo ay u dambaysaa iyagana way gubayaan kolka saddexda jid waxa weeyaan jidka maxaan ku dhahday Djibouti ka soo baxaya iyaga soo maraya Soomaali dhex maraya iyo jidka maxaan ku dhahday Djibouti ka soo baxaya Dirdhabe soo dhex maraya
ee halka adsaaba iskugu wada imanayaan yaa kolba mid la dooni in ma ogtahay laga kaxeeyo dhulkiisa wata dir dhabana la sheegtay kolka Oromo iyo Afar iyo waxan waa la utilizeynaya waa la utilizeynaya dad dan laga leeyahay maaha Oromo saddeq majority wadanka weeyo way isdifaaci imika ahaansa adiga lagu talagalay inay ku gubaan oo dhulka ka eriyaan jidka saddexaadina waxa weeyaan ka wajaale ka soo baxay adoo ku soo dhaxmari jigjigu soo dhaxmari saddexda jid baa loo samaystay ciidan military dagaaleed oo badeed waana saddexda meelood meel laga helay jid loo maro baddaas marka adiga inta waxa Soomaalida waxa la yiraahdaa nimaan wixii tagay garan waxa jooga ma garto waxa jooga nimaan garanna waxa soo socda ma garto war waxa joogaba hadaanad garanaynin oo wali dhulkan idil ee lagu la dagaalamayo aad ka soo jeedo xaqii cidii kula dagaalamayay oo aad wali aad fooda ku hayso ee ku isticmaalsan jiray ku guumaysan jiray hadaad garabka ku hayso de maba garanaysid bay ka dhigantay waxa dhacay kolka waxa soo socdana maba garan karaysid ba yani waxaan kugu la talinayaa iska gatag meesha amxaaru garab tagaya kolkaan maanta baqlay ee maxaan ku idhaahdaa ciidan buu u dirayaa iyo u garab jooga iyo wuxuu daynaya Tigray ani Tigray iyo amxaara ima kala soocna laakiin sida ta waxa igaga daran ila jooga kaas xuduudiisu ku dagaalamaya kani dooni inuu ma ogtahay ila war Tigray maxaad iga furtay naagta aniga qabay oo iga guursatay ee ku dagaalamay sidii sababtii sidii ku eriyay ee kugu soo haray dooni inuu ilaa halka kugu soo gaadho miyaad adiguna maanta gacan siinaysaa xageed ka dhoohantahay markaa ummadaada maanad u naxariisanayn ummadaada dhimanaysa dharaarkas war United Nationka iyo Afartu ka oyda United Nationka iyo Tigray ka ooya adduunyada u soo gurmata marka adigu xageeba adigi gurmad adduunyada iyo United Nation iyo High Commission of Refugee iyo balay iyo health inta iska daa aad u qayliday adigi baba garab siinaya kii dilay wax badan baan ka hadashi lahay maanta kama hadlayo taasa isoo gelisay anigoo program dhan inaan ka hadlo u soo galay kolka hore jeclaa inaan u soo galo oo shacabka Soomaaliyeedna la hadlo shacabka Afareedna aan la hadlo yaan kolka hore ku programaysnaa laakiin maanta adaan ku soo galay war dalkaaga soo adigii aan ku garanayo ma anigu miyaan ku garan waa adigii ma kolka adigu Cabdi Iilay oo meesha haystay Cabdi Iilay waa caynkan Cabdi Iilay waa sidan Cabdi Iilay waa sidan YouTube-ka iyo Google-ka iyo meel kastaba iyo Facebook-ka ka hadlayay lahama maanta kolkaad qabsatayna meel oo amxaaradu ay riwaayada ka dhigto oo nin maxaan ku idhaahdaa la yidhaaho ka madmatilo oo amxaaradu iskugu oo idioms ku ugu hadlaa amxaaradu bararjiyo idioms si aan loo fahmayn walaal adu waad gasho waad ka khudbadayso waan ku ag joogay maxaa ku geeyay halka waad garanaysaa halka aan ka hadlayo marka Fresh Adash programka weeyaan hadda iska jir Toba meesha Toba waad ka hadash marka وأمحارون هذا ماشي عد كلا أو إثيوبيان وتماد متجرت هل كان ما تكتوات كخا خطبة بس مركا ورمحات هاي ما أمحار بات هاي
shacabka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya ku arkaya ku maqlaya wax kastaba ku daawanaya iyagana ma la biikeeyay hadii lagu biikeeyay war sidaas Soomaali ku noolaan karto oo ummadi ku noolaan karto oo maahin ragga kula socda mid baa habeen dhaweyd ka soo baxay meesha ogaadeen oo halka xabadinayeen idinkaga dhimanin raggii la diray ciisaha dhabarka ka jabiyay oo dhabarka ka toogtay buu lahaa u ka hadlay de kuwaasaa tahay de haddaba ka adaa soo dirsaday ciidankii la diray bay dhabarka ka toogteen dadkaasi dad maaha Soomaaliyeed Soomaali ka dheer Soomaalina maaha shaqana kuma lihin ogaadeenow buu lahaa war ogaadeen walaalana ummad midana dal baan wadaagnaa dadnimaan wadaagnaa islaam baan wadaagnaa qabiil baan wadaagnaa oo annagiyo qabiil ogaadeen lanama kala kaxayn karo lanamana kala dheerayn karo la iskumana kaaya diri karo ummad midahat farqu dhahaatana ul iyo diirkeed baan nahay marka kuwaas oo kale waxaan kale war xishooda ogaadeenow ciisaha ha u dagaal galina dagaalkii kuwii loo diray dhabarka ka jabiyeen oo dhabarka ka toogteen wixii basaasayay iyaga ahaayeen wixii la hawla wala quwwata warba nin dhulkiisii la haysto oo dadkiisii la laayay yaa kii u gargaar yimiday dhabarka ka tooganaya billaahi calaykum xishoon maaya kaasi ku xishoonaya ma qabyaalada nacayay qabyaaladaha leys qabiilayna qabiilka ugu nacan ugu daran baan ku qiyaasi lahaa ka ma baab ogaadeen laana ogaadeen walaal baan ay ogaadeen dal baan laga dhaxay ogaadeen ani haddii maanta dhabarka layga jibiyo isagana waa u dambaysaa walaalkii loo xiiriyo aad la soo qoyso weey jigjiga wixii ka dhacayay waad garanaysiin jigjiga iyo agagaarkeeda wixii ka dhacayay waad garanaysiin dee way kugu soo dambayn way kugu soo socotaa kolka kani loo soo xiiro dee adaa lagu soo gali kolka ogaadeen saasan ul iyo diirkeed u noon difaacna u nahay nin ogaadeen kusoo durki kara ama kusoo ma jiro annaga horta u dhimanayna ogaadeen horti annaga difaaca galayna annaga la nagu soo horeyn annaga difaacayna ogaadeen imikaba waa difaac ogaadeen waxaan ku jirnaa haddii aan soo barakacno dee in lagu imanayo maanad garanaynin oo lagu xoreynayo laannama waxaan xasuusan anugu baan ka qoray maanad xasuusanayn ereyga Hayla Silaase uu odhanayay aniga Soomaali dhul iguma lehe xoola dhaqataa oo kolna xagga u oroda kolna xaggan u soo oroda iyaa maxaan ku idhaahdaa ila joogta inuu ma ogtahay ciidankii kolka halkaa joogay qabri daare iyo dhagax buur iyo inuu u bixiyay miyaanad garanaynin ya ogaadeenan bassa dibaxyada ogaadeenaya yani waa ayo ciidankaada ciidankiisii miyaanad xasuusanaynin marka annaga iyo ogaadeen lanama kala saari karo lanamana kala kaxayn karo anigu iyaga darteed baan wadanka uga baxay oo qaxooti u noqday ogow way joogaan maxamed qawdhan iyo dayib maxamed iyo rag dadkii aan qabri daare wada joogneen u yeedheen $500 inta bir intaan u dhigay aan idhi heesta aniguna tusmaystay qayrkay halkuu tagay u tabaabushaysta ninka ii qaado lacagta qaado sababtuna ay ahayd waa maxay kolkan lacag ka waayay wadanka kolkan shaqaale wadanka dawladda u shaqeeya aan ka waayay kolkan iskool ka waayay kolka aan maxaan ku idhaahdaay raashinkii iyo gargaarkii loo soo keenay dadka uu ababa bagaasho bakhaar ku guray
إن وحى صور دن أركي إن أبا بقاشو تجين ور العق مربتها ها ور ربع حجدي كين ور أنا كوها يه مربتها ها دحدن جوكت دادكو كل بصور من قبل محنكو دايد عيلك مراعة كفها فيسا أفكا مع مراعة هنكحدو دنعيدنا هنكحدو أون بنكا وين فافنت كضادين وهرور كانت بخارك كقرطي أو هبير أو كلك أنت كجوسانية أنا وحن كلك أوجد عبيني دولة اللي عسكري ما يسقوا عيدنا حقرطان شعبك قاعد يوصلنا ماشي بخارك كجر حوله إيان لها habeen kiiba soconayay oon moosaya anigoo ciidanka militariga meeshiisa saaxda ama nabadgelyadiisa oo ka soo guuro dayb maxamed u imid inaan la saaxdo aan sababta aan moosi jiray maxaan ku dhahday meeshii faafta dixda ka furmanta wala ogaado wala qabto wala habeen baa la soo qaaday anoo u baxaya jidka مريا هدمرت اللي أو عيدا راعي أو هردا حالك عيدا كميليتري قد حديثة شلاوة كسعود ولا يسوق هذا بوليس كان أو كي حكومة يأقل كيسي لقى سوق عيه أو لقيت الشغي إلا إديله إلهي وحو كان قال فرنسيس أو بروجيغا عن كشقيني يعني فرنسيس بنقول كأو شقيني أو كان بروجيغا وبيشر اللي بروجيكت اللي أورني قال كي يلي أنا يسوي ديستا كلكم شقة ديستا دماغه إمي كستاتستكس ويا وحوك شقيني هبين ساعد كمان مقنان كريو بروجرام كسيدا أنا أقول تلا قالنا إمي كذا يجي سوسي داي سيدي بنكب بحي كل كان بب أتسابا نمدوز كجوري بقولكيو و يعني دبعت هذا يكون شرام ما نعي أون أركن إنها أنصاري وأنا دو ذا جريسين وحنا نبين شيء مركا أني أقعدين بان أدي من يدرارته أما ودن كوجب حيان ودن كي بقولنا هاي لأن ما كان القاضي كرو أقعدين يا أنا دفاع أقعدينات بان هاي أنا هل كأن فردين هو الدفاع قرت أنا قال لنا صوت لما يهلا يدين يمادو marka maanta sideebaad idinkuna aad u oranaysaan ogaadeen oo ha u dagaalamina inkastoo hadalka kaas aanan qiimeyneynin maanta waa walaalihiin laakiin madaxweynihii weeye maanta waxa joogto ee garab siinaya warkii 30 milyan siiyay Soomaa ahankeed dagaalka uu lagu soo qaaday sababteeda ma ahan wax kale ilaa بروج نينكا وحي جوغا غرانو waxa soo socda ma garanaysid waxaan ku leeyahay hadii jidka laga kiciyo isa jidkan kale ee dirdhaba soo maraya ku xiga jidkaas kolku kacana waxa ku xiga jidka tagaya hay jigjiga maraya sida iyo qoy u dhax u maraya u tagay iya ku xigay laano bad baa la rabaa Somali عدو Somali كو أنا ويجوكتا ماشى سودونا يا إن أو ملبا هشيس لا أو ما حنقول هذا لا دحمر تلليه وراديقنا مقايبات كقاعدنا يسا ما برنامج كاسو سعودة فيوتشر كأ ما حنقول هذا ياد قايب كقاعدنا يسا مركا waxaan leeyahay Soomaaliya dibaatada wixii idinku haya oo dhan intaad iska ogaatiin ka dooda ka dagaalama habdi ilay wala amreehay dhulka bixintiisa kani sawkii ku hadlay dharaartii oo meesha qabsaday dhulka waan soo celinayaa de aw soo celintii daayay wuxuu inuu ka dagaalamana jiri سو كمان أنت أمحارق عن سينا يما أو ضوضة ذينا يا تجريج عيدا أو أدري قال لي أنه يا بنتا ولي أنونه بدماغ كما هذا الكريه إذن كأيوبي
marka war Soomaaliya ciise waa garabkiina ogaadeenoo la idin kala saari kari maayo ninkani idin kala kaxayn maayo idin kala saarina maayo ciisena waa difaaciina kolka isaga la soo dhameeyo ha lagu yimaado marka isagana garab galde inta waa lagu soo socdaa soo isaga garab gal oo xaqqa iska si difaaca wada gala goor kastoo noqotaba kani cafareed baan u iminday kan cafareed waa la utilizeynaya waxa weeyaan raggan la soo diray raggii aan ka hadlaya Soomaaliyeed ama ina iileen ahaan noqdo ama kuwa ciisaba ha noqotee haddaan sii sheegana maxamuud dirir u weyn yahay waa 30 sanadood wuxuu dawladda ku jiray muunan ka baxay muunan waa laga fadhiisanin intii kale oo dhan la wada fadhiisiyay iyo kuwa nimikaba kuwaasuu ka mid yahay kan cafareed waa la dirsanaya amxaaraad soo dirsanaya amxaaraad program ka wata cafar ma cafar waa walaalehen weeyaan marka ka iyo wixii maskaxdiisa qaata weeye waxaan dagaalka ku jiro cafar waka in ay ka dagaalamaysa ma xagga tigreega dhinaca siisay ma qayb tigreeg bay la dagaalamaysaa qayb garab siinaysaa oo amxaar bay la dagaalamaysaa kolka cafar waa taawi kani waa kulli iibsaday waa ku xiniyaha la taabtay waa ku sida in lay dhulka looga qaatay maxaan ku dhahday loo wato weeyaan oo amxaaradu cafar maaha waxay u qaaday dhulka ay hodhow iyada qaadan doonta waa sida maxaan ku dhahday program ay wadato divide and rule way korta divide oo kolka aad kala qaybiso iyagu is galaan iyad adigu galiya waxa weey programku ba halku ka dhalanayna aan idin sheeg ka dhash 67 French Somaliland kolkii la bedelay ee territoire français afar ciise laga dhigay saaxil Francis Somal ciise wal afar laga dhigay buu hayla silaasay war hadii halka lagu heshiiyay oo xurriyad lagu doonayo afar iyo ciise arma kolka adigana ilaa halkan laano waxa la oranay ciise na gurgura adalina ciise gaara guraacha aw raja gizat baa la oranay way isku xidhnaayeen kolkaas uu yiri arma halka haday heshiiyeen halkan ciise adalina ciise ay tahay armay ku yimaadeen oo magaca ogaan loogu sameeyay magaca dhulkan ay ku leeyihiin kolkaas uu divide and rule sameeyay isku diray kala qaaday oo ciise na gurgura gooni uga dhigay afarna gooni uga saaray dabadeedna waxa ku xigay dagaalkii uu soo qaaday generaalkii ciidanka ahaa ee amxaar general Edgato colonel Edgato Orome iyo afarba uu soo kaxaystay saddexda ay mar quraatay la dagaalameen war haddana adil lagu jeedin saddex qol amxaar iyo Orome iyo afar meel loo soo qaadan ciise yar qabiil yar kan safaa kolka damana kuwan u kacweeyaan taariikhdaas oo dhambuug baan ka qoran imika wada oo dhameeyay oo wax aan daabacay marka warxisho ciise Soomaalida ha gubin maxaan ku dhahday أنا عفر كهذا يعني أديك صوغ يا كل بقول يعني مسكحة إذا هذا الصومالي كل كوا حن عفرت عن كل نقطة عفري والسكين جوبيا أديك أنا والله صوت بين دوناي لأنه دجت كأد فرد وادونيجي إثيوبيا وادونيجي أدسابا وحلا قد قال لي هرت كم بقية كفر دي كان أنت كيركك حيوي كل كان أديك لجو إمن دونا حداد قرنا يصدق waxaan jecelahay inaad garatid cafar halkee Djibouti waa inaga walaalka ku isqabne isguursadne isdaawada dhalne isla nool ee dawlad wada xukuumana ee nabadgelyo maxaa xaqan inaga jira war min halka ilaa halka waan wada leenahay waa in yar oo la utilizeynayo ee cafar maskaxda dadka la utilizeeyay iska jira أنا واندين دقيقة
waan idin digaya dab aanad lahayn ha ku dhicina hadalkayga waxaan kusoo koobayaa oo dheeraan haddii aan pointiyada aan soo diyaarsaday aan ka wada hadle waan kala gaagaabin doonaaye sidaas share sameeya oo isgaadhsiiya hadalkaas hadal hadha yeelsanina hadday jigjiga tahay hadday ciisaha tahay hadday ogaadeen tahay hadday soomaali oo dhan tahay war xaggaa kolka ama ays la joogo sawta hawiya galo ma la daynayaa dee muxuu u sugayaa ciisa la laynayaada un loo hayaa ma la dayn doonaa isaga muxuu dagaalka u gali laayahay ma la dayn doonaa lama daynayo dee waa sidaa weeye adigaa laguu jeedaa dir dhabada tan la qaatay taariikhdeeda waan qoray waan hayaa buugaan ka iminka qoray baa iyuu ku jiraa dir dhabe nin kaliya haatay oo maxaa ciise naa gurgura raasgash bay ahayd korkii Mengistu ciise naa gurgura awraaja ahayd korkii Hayle Silaasana Hayle Silaasa waqtigiisii maxamuud jarman baa xukumayay Mengistu Hayle Mariam waqtigiisiina waxaa xukumayay Cabdullaahi Sheekh Axmed goormay soo galeen dadkan kale dee haddaba ciise naa gurgura raas عيسى ناقرقرة أوراجة أدالنا عيسى قارا قراجة أوراجة عيسى ناقرقرة راس قش محي أم بي أحيد عيسى قرقرة ما هنا عدك لحقيقة جري وبروغرام لبستي وبروغرام كل كاد وقتي تقريقا أم بي وحاني وضا بلامين تحقق قلبيتك وحي بلامين وقتي هاي الاسلاس دي تقريقا تيبو الراعي دي halkan inuu jidka kani xoreysto oo ka qaado Soomaali laanama weligeedna lama aaminayo haddii adduunyada oo dhan la wada rogo oo Ethiopia wada qaadato adduunka Soomaali ma aaminayso kolkaas talaabadii Hayle Silaasa qaadan buu qaadayo waa ka kusoo horeeyay gobolkan Soomaaliya haye marka muxuu ilaa maanta u dhexgali laayuu u ciidan u duldhigayaa Abiy Ahmed dadkiisii weeye dadka maanta islaynaya inay gubanayso Ethiopia miyuunan garanayn kolka haddii ay ma ogtahay xagga Tigreegana ka gubato xaggan maxaan ku dhahdaay Soomaalidana ka gubato haddii ay dhinac walba ka gubato in yaroo kale inay soo bixi doonto miyuunan garanaynin xagga Oromadana ka gubanayso maxaa hadhadii muxuu u hadli laayahay muxuu u joojin laayahay sawkii baadhimaba bixiyey ee dowlad kala siiyey Eritrea oonan dowladdaada Ethiopia shaqo ku lahayn yaa ka dhex dagaalamaysa واسدي رب رالي هذا عن صوكوبو إن ندين كوبدين وحاسور دنبا موقتا إيجا شدمي إن كوضا هادلد لو باهي هاي شير سمية سبسكرايب سمية سدا إيو نبت باندين أوغا هاي إلهينا قربكي نحقرو صومالية إلهي إسكو حدا diintiina adkaysta islaamnimadiina adkaysta iimaankiina adkeeya waad guulaysanaysiin عفري dadkan dad islaama maynan ahayn oo walaalaha dad aad Djibouti wadaagtiin maynan ahayn maxaa dhacay inaad ku soo duushaan dhulka iskala daga iska qaata iskala noolaada maxaa dhul dagaal iyo keenay dagaalka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.